حفلة شيء صنعت كوعد وحمد لله إنها صور وادا. أنت أنا هذا الكوب الجريم وح أن عادة ولا هين بقى كيف نوعها هنا أيضا القرآن الكريم كفرنا وحن نقول يا شيخ أحمد طيب تفضل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قدوميها لانتا وعيد دلك النرويج سوء تفاصيل إنه قصيو وحقبتك يسنا وحد عيا وحسكير الرسالة وحن هلكن آبيات وجمع هذا قينا والكسر دويننا ولا أنا قاعد فرن كسر دوانا نورا عيسى عمر حكايها جود يوروب إيو فوسيا عثمان قدوميها أولك يقرأ قارة يوروبتا سوري هذا أرتمك هذا waxaa kaloo halkan aad iyo aad uga mahadnaqaya dhammaan dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay hadday yihiin xisbiyada kale wadani kulmiye waxaan leenahay haddaan nahay cid cadaalad baan idinku soo dhaweynaa waan idin jecelahay soo dhawaada haddaba anigii baan gudbiyo gudoomiyaha laanta Norway cid Cabdixakiin Ismaaciil dhammaantiin waa salaamantihiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan mahad gaar ah uga soo jeedinayaa shirkan oo ay noo soo qabanqaabiyeen haweenka garabka ucid Norway aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa magacyadooda anoo waxba kala sheegin aad bay u badan yihiin shirkanna wuxuu awoodda saarayaa maanta in guddidii la magacaabo garabka haweenka ee Norway shirkanna iyagu inta badan focusku uu yahay inagoo kula ciideyna oo kala qayb galayna laanta ucid ee Norway garabka haweenka oo maanta dhidibada dib loogu taagayo oo markii hore inaga kala baydhbaydhay oo dib loo abaabulay oo abaabul cusub lagu sameeyay oo guddiyo loogu magacaabi doono halkan ayaan maaragtay aad ugu faraxsanahay xafladana waxaynu u joognaa inaynu hawsha aynu magacawno oo hawshaas ay inoo dhamaato waxaan halkan si guud aan uga sheegayaa ucid wuxuu u taagan yahay iyo shaqadaanu hayno waxay tahay kalaan ahaan iyo ka guud ahaan xisbi ahaanba labadaas ayaan wax ka yar taabanayaa haddii aan ku bilaabo mabaadi'da guud ee xisbiga ucid ku shaqeeyo xisbiga ucid waxa weeye xisbiga keliya ee leh meel loo raaco magaca xisbigu waxa weeye ururka cadaaladda iyo daryeelka waxaanu tilmaamayaa in ay suurtagal tahay in aynu dadkeenna aynu daryeeli karno inaynu wixii ina soo gala si fiican u maamulan karno inaynu keenna liita keenna buka keenna gaboobay cid u shaqaysa haysan keenna socon kari waayey iyo keenna taajirka ah inaynu isku wadno oo aynu isu beeqaamino oo aynu isu joojino oo aynu is ogolaysiino oo ay iscaawiyaan maaha taajirku keliya inuu dadku ka shaqaysto waxba ummadda ku soo celin xisbiga daryeelka iyo cadaaladda waxa weeye mabaadi'diisa asaasiga ahi waxa weeye in bulshada liidata in aan laga tegin ka shaqada samaynaya wax soo saarka samaynayna in la dhiiriyo waa xisbi ku tiirsan garabka bidixda marka loo eego xagga siyaasadda oo la siyaasada xisbiyada shaqaalaha ama social democratska loo yaqaan caalamka waana xisbiga kaliya ka tirsan urur caalami ah
oo siyaasaddiisu tahay social democrat oo la walaala ah masalan arbay baartigo kale xisbiyada la midka ah ayuu la jala yahay wax xisbi calaamad iyo sumad leh marka xisbiyada kale calaamadooda iyo sumadooda iyaga sheegi doona mayna wali ku arag laakiin anagu xisbi ahaan waxaanu idin leenahay oo ummadda u sheegaynaa waxay dadku yidhahdaan xisbiyadu waa isku wada mabda waa isku wada siyaasad isku wada mabda iyo isku wada siyaasad maaha annaga kaygu cadi waxa kaloo cad cidda aanu u dooranayno aanu sharaxnay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku way cad yihiin waanu gelin horaan badka sii dhignay ummadda muhumal kuma dilayno iyo madax maaragtay aan ma garanaysaa aan cid weli aan kala bixin oo aan la garanaynin goorta dhabarka laga taabanayo oo maaragtay la leeyahay waa lagu fasaxeeyo dad sugaya fasax ayaynu maaragtay ayaanu aragnaa xisbiyada kale inay yihiin marka anagu laakiin kuwa iyagu fasaxii ummadooda ka heleen shacabkooda ka heleen xisbigooda ka heleen waxaan ku faraxsannahay in xisbiga ucid uu banaanka uu yaallo ay taalo banaanka siyaasaddiisu oo la og yahay siyaasaddiisu caddahay madaxdiisuna berri cidda aanu meesha soo joojinay ay caddahay oon muran ka taagnayn ayaan dadka u caddaynayn waxaan intaa ku darayaa laanta ucid ee Norway howlo badan baa noo qabsoomay hawsha ugu badan ee laan ahaan aanu shaqadaydu tahay waxa weeye inaanu dadka aanu dhiirigelino oon ku dhiirigelino inay waddankoodii ay siyaasadda ka qayb qaataan ay ummadooda waddankii joogta ay wacyigeliyaan ay ku wacyigeliyaan wanaagga iyo cadaaladda iyo sinaanta oo aan qofna la dulmiyin waxaanu ku dhiirigelinaa xubnaha laanta ucid ee Norway inay siyaasadda ka qayb qaataan inay dalkooda u halgamaan oo weli dalkii uu u baahan yahay halgan iyo hawl in la geliyo oon laga seexan waayo meel aynu kaga seexanno weli ma joogo dalkii wuxuu u baahan yahay ummad u shaqaysa cid u shaqaysa waddanku u baahan yahay dadkii u shaqayn lahaana waa innaga ilaahay nagama dhigo kuwii ummadda markay xilka qabtaan ummaddu dib u habaarto sida dhacday waxaan rajaynayaa in ilaahay inagu guuleeyo oo maamulkii sax ahaa aynu ilaahay uu inaga dhigo ayaan ilaahay ka baryayaa waxa kaloon caddaynayaa in kalaan ahaan ay tahay in xilka ugu weynaynu haynaa inaynu ku taageerno xisbigeena dhaqaale maalinta ay joogto doorasho iyo maalintii waxii kale loo baahan yahayba ay dhacdo in loo baahdo dhaqaale ahaan waxa weeye xilka ugu weynayna maaragtayna saaran waa ka ah ummaddana waxaan usoo jeedinayaa ama taageerayaasha xisbiga ucid ee Norway inay usoo jeestaan waddankoodii inay wax u qabtaan inay ummadooda wax la qabtaan inay wax nala qabtaan nala shaqeeyaan ayaan usoo jeedinayaa waxaan kusoo gabagabayn lahaa maanta siyaasadeennu ama siyaasadda waddanka lagaga dhaqaa waxaynu u baahan nahay siyaasad ka duwan waxaynu u baahan nahay siyaasad madaxweynuhu uu awood leeyahay uu waddankiisa iyo dadkiisa og yahay waxaynu u baahan nahay madax ummadooda u xoogaan waxaynu u baahan nahay inaguna lafteennu ka ucid ahaan inaynu wanaagga aynu ka shaqayno xumaanta inaynu iska reebno in aynu wanaagga ummadda kale iyo jaarka iyo dadka kula shaqayno inaynan caytamino inaan yooyootamino inaan kiina caaya inaan cay ugu jawaabin waxa weeye qofku ku caayay isagaas caayay in caydana la yareeyo oo wax maaragtay kiis ama laga hadlo saak ama wax loo yaqaano issue oo aan laga hadal qof iyo shakhsi iyo wuxuu qabtay iyo wuxuu cunay iyo wuxuu cabay laakiin ummadda wanaaggeeda laga hadlo wixii laga qaribayna la sheego aan laakiin shakhsi ceebtiisa iyo shakhsi ceebayn inaanu ka fogaano ayaan guud ahaan usoo jeedinayaa madaxda kale Somaliland inta in leeg baan usoo jeedinayaa waa waxayna wada quseeyaa waayo yootinka iyo caydu ummadda uma wanaagsana محافظ معارض مدنا ومفعنا إن لسعايو وحوناكسن إن لسدليشة هدي لسدليلو ولا لسدليل كران إن لكلا دقيستو هدي دليل ماشي قبضت هاي إنه قفوا دليشة قاتو يقولوا والله وادي توسي واتكم هاتنتاي هدي أنا دليشة هسي ماشي قبلنا دائما قبضتها السنة يسنة وقرب أو قرتي سو شيكتانو لكن قفوا كلا عاين أيا إنه وذا واجب مانتن تاسا يهونتا إيو وذا شركة إيو وناك دلكينو وكل اسمه يا waxaan kusoo gabagabeynayaa haddaynu nahay laanta ucid Norway waxaynu waddankeena ugu shaqeynaynaa lilaahi iyo daacad waxaynu ugu shaqeynaynaa
in aynu waddanka aynu wanaag u horseedno inaan xumaan u horseedin. Asalaamu calaykum. gudoomiye cabdixakiin ismaaciil waxaan halkan uga yeerayaa ciddii sharaftan isku imaanshahan iyo qabanqaabadaba qaybta ugu weyn lahayd marka hore oo ah guddida haweenka laanta ucideed dalka Norway. waxaan u yeerayaa Fayse iyo guddideeda, Fayse Caduur iyo guddideeda. waxaan salaamayaa madaxda ucud ee maanta halkan martida inoogu ah, gaar ahaan marti sharafta inooga timid cariga Ingiriiska, Foosiya Cismaan, gudoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta, iyo Nuura Ciise Omar oo ah xoghayaha Yurub. waxaan leeyahay ku soo dhawaada Norway, gaar ahaan Oslo. maantana waxaan idinku soo dhawaynaynaa xafladda ucud ee Oslo, Norway. halkan waxaynu isugu nimi maanta laba qodob. qodobka koobaad waxa weeyaan in aynu muujino taageeradeena aynu u hayno xisbiga ucud oo aynu boorka iska tuna haddaynu nahay reer Norway. ta labaadna waxa weeyaan in aynu magacawno guddoomiyeyaasha garabka haweenka, aniga oo halkan inooga sheegi doona magacyadooda iyo sida ay xilalka u kala qabanayaan. guddoomiyaha koobaad ee dalada haweenka Norway, Fayse Yuusuf, waa aniga barashada. guddoomiye ku-xigeenka garabka haweenka Norway, Shaadiye Maxamed. guddoomiyaha garabka haweenka Oslo oo maanta inaga maqan, Hodan Cali Madar, oo inoo iman doonta marka dambe aynu baran doonaa. Muna Siyaad oo ah guddoomiye ku-xigeenka garabka haweenka Oslo. xoghayaha guud oo ah Muna Xasan Ruweyda Saleebaan. istaag. guddoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta Norway, Najax Saleebaan. istaag. aad iyo aad raalli u hada waxaan inoobay marti sharafta maanta kasoo qayb gashay xafladan ee taageerayaasha reer ucud. abaal weyn baanu idiin haynaa, markastana waanu idin soo dhawaynaynaa. waanad ku mahadsan tihiin waqtigiina qaaliga ah ee aa maanta siiseen taageerada xisbiga ucud. waxaanu idin leenahay soo dhawaada, weliba waxba kama dhawaa. reer Somaliland waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaanba, waxaan ugu yeedhayaa xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ayaan ugu yeedhayaa. waayo waa xisbiga keliya ee maanta waddankeenu u baahan yahay. waa xisbiga keliya ee maanta haya caddayn iyo wax buruufa oo aynu ku raacno. waxaynu haynaa musharaxeenu inaga maaha musharax u socdo inuu jeebadaha ka buuxsado hantida dowladda. waa ogtiin Jamaal Cali Xuseen. dadku way isweydiiyaan oo waxay yidhaahdaan Jamaal Cali Xuseen Somaliland uma baahna, muxuu kasoo doonay? Somaliland iyadaa u baahan, innagaa Jamaal Cali Xuseen u baahan oo danta dalka iyo dadka baahiyaha iyo cadaalad darrada iyo dhibaatada taala wada ogtiin Somaliland. iskuullada xun, biyo la'aanta, dhakhaatiirta, wadooyinka, shaqo la'aanta. waad ogtiin maanta dhallinyaradeena iyo carruurteena inay ku dhammaadeen saxaraha Liibiya iyo badda. inta hadhayna waad ogtiin kalluunka xawayaankii baddu inuu ka dhargay. maanta inagama go'o, inaga qof reer Somaliland oo xabtini gaadha inagama go'o, qof dhintayna hadalkiisa ba iska daa. maanta waxaynu ka hortagaynaa dhibaatooyinkaas oo dhan. markaynu ka hortagno, markaynu waxaas oo dhan aynu damacno inaynu joojino, waxaanu leenahay reer Somaliland danta dalka iyo dadka inagu eegayna xisbiga ucud noogu kaalaya oo nala eega cadaaladda iyo daryeelka. musharaxeenu maaha maxaafid iyo macaarid, waxaynu nahay xisbi macaarida. macaaridnimadeennana waxaynu ku taageeraynaa oo aynu ku adkaynaynaa qarannimada iyo jiritaanka Somaliland. waxaynu baabiinaynaa cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda. xisbigeenu maaha xisbi reer hebela,
من هي رير هبل وحينو نهي رير سوماليلاند حسبيين وحو ككوبي هاي بريق الله سعانود صول إلى سناك قلبيتك أوضل إلى سناك waxaan u sheegayaa dadka Faysal Cali Waraabe ku riyoonaya Faysal Cali Waraabe waa laf dhabarta iyo halbowlaha xisbiga u cudmay Faysal Cali Waraabe iyo Cali Guray waxa weeyaan halyeeyada wadanka ilaaliya abaal weyn waxa idin cadeynaysa inay muwaadiniin yihiin waxa idin cadeynaysa marka tacadiyada dadka loo geysanayo masaakiinta ee saxaafadaha la caburinayo waa ragga ugu horeeya ee ugu cadcad ee ka hadla tacadiyada dadka loo geysanayo waxaan oran lahaa hal mid baan oran lahaa adeerkiisii ilaahay de xirsuun adeero ma anaga baad adeerkii waxaan oran lahaa oo kula talin lahaa shaahid baad ahayd milkiye sharaf leh sharaftii aad lahaydna kursiga reer Soomaaliland way kugu saareen oo way kugu sharfeen sharaftii ay kugu saareen abaalkoodii umaad celine محمد حاج إبراهيم عقال له هو نحرسته شرفته ودك كجت جا أفرت عشاء أذيك يحول فضا ذيدين هذي كجت جامعي هذا هو يجوا الصوب بدينا يوم إنت سامو الصوب ويا dadweynaha sharafta leh ee ku soo biiray xisbiga wicid oo halkan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل والله اسمه صوت ضوء وبريا أو ضدك ويصوص ولا هو البديل. هرت واحد هذا كسلام يا مدح الشرف طلع. نورا يفوسيا أو نور النوويمي أو ودك إنجليز كنوويمي وحويان يقول الله نبرتا وعد حسب جايين بدل بكسر شرين قبل قابضة يقدمي هبا وحنا لا يسود وهذا كسر وهذا نور. waxaan jeclaa horta inay rag ku hadlaan oo dumarku yara dambeeyaan malaha cadaalad baa muuqato waa tan dumarkii la horeysiyay horta aniga shaqo ahaan markaan iska hadlo oo ilaahay igu og yahay waxa la yiraahdaa qabiilka waa nacaba Soomaaliland waa loo dhashay horta dee lama galo qofku waa inuu dhasho waxaan aaminsanahay shaqo ahaan dalkeenu maanta halku ku socdo أما سلوي هاي سوى ناس ما هسقرح بدنا ما هو نود أبنه. وقت جد دجال هذا صومالنا أما وقوي جاي كبل عمي وح أبوه الرجال ديتنا وح هاي قبيلة. بعشرين واحد مدعي مكان ما شرف هذا الدريو اسكروي نلقو بريو. وأنا واحد فرح معه. قبيل كسيدي سوا ما قرح بدنا. حتى لو ما أنت ناس قبيل السجون بعضنا واحد شري يا متشرو وبربرينا. هرت قبيلة إنسان لو بدو ما قرح بدنا. طلبات وحن أنا رواينا شرحه حسب جا أعد حسب جا أعد أنا ده ما تشعلين هادو قضاء لا يجي راح أنتهي ما عنده ويتو وطني معنا كل حد كله أنا واحد شعله نسي شابه وطني ما أنتهي وطني ولا يسوق يعني ده اللي يشجع I proud I respect أد بروح احترامية قدومي أنا وحنا لي هاي واتسلامن تاعي وأنا الشرف بدلنا وأنا هيا حسبي وأنا حسبي جرا الله شرفه مركن تجي حسبي جد ضد كويسكا عاطفية بدل بقى كنت كتوه على شغل حسبي جوالك بعد راح كنت حسبي محل هو حتى هو بحنا يا وانا نزل كنت جرا كن أهانتي دين أول بوان تاجر سنة أنا شغل أهان لكن أنا جم موقف أهان قف بين هاي تاجر أو نور opinion كي يضمن ما إذا أنا كويستاري قفني جم هو استاري كرام قفي كتشوتش كرانة متشرو مركن دنت جود يتها سومال لنا نركينا حسب جاو حنكون راعي مركن ربط إيدي شابو مر حدي مدحوينه يرئيس الوزراء يشرحيه I respect that سباقون راعي واحد كلامكم معاه دال كان نكون والله وحنا كبرنا مركو حسب تشرو مر والبو حسب قد جاء كتشرو وربا إنه دور شجعه رئيس الوزراء وسيرده ويشرحيه ولا سيوجيه لكن واحد موضع حافظي كلينا يولي
lagu yaro jiro loola taana waxaan leeyahay dhibaato ma laha sida loo kala baxayo iyaga waxaan rabaa xisbigeena sharaxo waa siday faysi sheegtay anu ismaan lahayn faysa waxaasaa ku duuganba waan kugu hambaliyeynayaa awalna waan ku jeclaa maanta waan kusii jeclaa hadalkarnimada iyo dadnimada waa loo dhashaa faysa way noo gaban jirteen laakiin waxa weeyaan ma aha waxa weeyaan iyadu xisbi bay ka hadlaysaaye meel ka sarreysaan rabnaa inay tagto waxay tiriyaan faysal lagu riyoon aniga faysal markaan ka hadlo hiisa mawaadin waa nin mawaadin ah qofka soomaalidu runta sheegana way necab yihiin haddaan maanta halkaa runta ka sheego waa lay wada xagxaganaya laakiin waxaan ku qanacsanaya inuu nin runta ku nool yahay dadkuna hadday runta sheegaan wax xumaadaa ma jiro laakiin soomaalidii qof run rabaa ma jiro waa kow xisbigu waa lafdhabarkiisa waa ninkii asaasa waa ninkii u taagnaa waa in lagu ixtiraamo qofku yahay iyo dadnimadiisa iyo shakhsiyadiisa haddaan isaga la ixtiraamin تعليل له أقول له ولا تهجن سكن اللي واحد أنا كسيج على هذا بقى ما أنت إنك حس بيجي ويلير أو دليرة أو واحد برتي أو ضمن ماله أقولنا له أفتحنا أبونا يجي أذوق إنه جامي صومالي لقى مهلا أم أفريقيا لقى مهلا وشكل كده أقول كراس أفريقيا ربا ولا قال لي إلا هي غير كود أنا سكيمية اللي جوهي أو لو أنا صفر إنه أفريقيا كنا بروبلم كهستي عالم ثالث كا نركو بقول سنة مركو قالوا وحر ربعينه هالكي فرديه وصيف فرديه كرسي قال لي هذا وصي شغل كرسي شعير كنا وحر ليه هاي بروبلم بدن عدالة درو ليه هاي إقابل ليه هاي إن جماعة الحسين ربعينه وحير كشرحه كل أنا وحنا مسنا هاي I'm very proud him وحن كتش على يستي ونير إنه ما بحنا سافيس الشيء تأينا أو بحنا دلكو change بو باهي change كنا حكي ما دعنا يرد إلا سوء يارسيه wadaadadii odayaashana anigoon ku dheeraanayn umaamadooda madaxa loogu duubo oo halkay baawo ku dhalinyarada iyo dadka wax bartay haddaynaan meesha keenin wixii noo hagaagayaa ma jiro dhaqankii wuxuu ku fiicnaa markii geedka aynu joognay laakiin adduunyada xadaarad bay ku socotaa technology-gu odayaashu waxay odhan jireen hore waxaan u soo taagnaa anigoo halkaa libaax isha ka riday waxaan u soo taagnaa annagu inta reerkaa degno roob nagu da-ay bahal libaaxi noo soo dhacay annaguna maanta waxaanu taaganay adduunyadu waxay ku socotay kamaba sheekayn karna haddaad uga sheekayso qof waalan bay kuu qaadanayaan isagu halkaasuu taaganya laakiin adduunyadan maanta ayaa la jaan qaadaya waa ninkaa yar iyo ra-iisul wasaaraha uu soo sharaxay ayaan aad ugu taageero ucid waa cadaalad wuxuu ku yahay waxa weeyaan waxay soo sharxeen madaxweynahoodii iyo ra-iisul wasaaruhiiba way kala baxeen xisbigu ma laha madmadow taasi waa mid waxaan halkan rabaa inaan ka sheego waryaanahay mid baan rabaa inaan u sheego jamaal iyo ninkaa kale ra-iisul wasaaraha ay soo doorteen meesha madaxweyne ku-xigeenka daanu ra-iisul wasaaruhu baan garanaya madaxweyne siyaasaddii baa la wada galay wixii ba isku yaacayeen labadan nin waxaan rabaa inaan u sheego berri haddii ay dalka hantiyaan inaan iyagana sida maanta dadka maanta jooga problemka loogu hayo ama hadda anu mid baan raba horta inaan idin sheego dowladda maanta jirtaa horta madaxweyne inoo wada yahay madaxweyne siraayo inagoo dhan madaxweyne inoo yahay ixtiraamkiisuu leeyahay waxqabadkiisuu leeyahay xumaan hadduu sameeyana maaha in la xagxagto waa inaynu wanaagiisa nidhaahno aabdeer dee halkaa ka wanaaji wax because of haddii maanta xagxagashadaa la wada xagxaganayo iyagana berri waa la xagxaganaya reer somaliland waa inaana jiraynin qoladii maalinba haysata inaan la xagxaganin waayo waa ceeb waxaan leeyahay inuu cadaaladda aana dee maanta sidaa la leeyahay ku dheeraan maaye aan isaguna berri aanu noqonin anigu xisbi baan ku jiro waxaan uga soo baxay markaan arkay cadaaladiisa iyo dadnimadiisa iyo aqoontiisa iyo dee da-du maanta jiro waxaan isleeyahay in badan buu sii haynayaa dalka haddii ilaahay idmo allaha garab galo reer somaliland baan mid rabaa inaan u sheego waxaynu nahay dad sixni ku wada fadhiya ilaa bari ilaa iyo galbeedka halka ugu dambaysa dadku waa inay igwal noqdaan waa mid haddii inagoo sixnigaa ku wada jirnaa oo saa ugu wareegsan maalinba la yidhaahdo halkaa uma baahnin taasi reer hebel bay noqoto uma baahnin taasina reer hebel bay noqotay taasina reer hebel bay noqotay taasina reer hebel bay noqotay sixni maran iyo xaashi madow baa lala soo baxaya somalilandnimana ma jirayso dadnimana ma jirayso somaliland waa inay equal noqoto
oo Jamaal Cali Xuseen berri markuu qabsado ninka u dhashay carradan ogahay iyo tan inaga shisheysaba uu xaqooda iyo xuquuqdooda sugo markaas u cidna u jiraya Soomaaliland imika 22 sanadood baa u dhamaaday baan u maleynayaa 23 sano imika ku socotaa way dhamaatayba 23 sano Soomaaliland way soo jirtay jiidashana ma jirin dadka deegaanka inala leh reer Soomaaliland si cadaalad ah wuxuu u qaybin jiray ama loo wada qaybsan jiray maanta waxaad moodaa in cadawtinimadii iyo xumaantii qolana buuraha u cararayso qolana badda u cararayso taasina waa tafaraaraqa Soomaaliland timi ama siyaasadda maanta jirta ay keentay haddaba waxa loogu aan jecelahay in loogu baaqo dadka reer Soomaaliland ee Soomaaliland oo dhan ku xeersan sida Faysi sheegtay in cadaalad lagu simo cadaaladda halkay ka imanaysaa waa u cudoo la doorta maanta waa Jamaal mar walba ku doodaa anu dadka waan simaya dadka haddaan la simin in cadaalad ma jirayso haddii beelbeel awalba beelbeel baan wuxuu qaybsan jirnay beel walba de hilibka leedaha la siiyo ilaa libax baa ugu jira meesha aniga shugri ahaana waxaan taaganahay maanta laga bilaabo u cid baan taageersana shalay waddan hada da waddan ku u cid noogu jiray ugu waaweynaa waa ka yaacay marka waxa weeyaan sida ayagu weynaystaan dadkii oo maalinba meel baa loo yaacayay laakiin anigu kulli waxaan isleeyahay waxaad u soo carartay meesha ugu fiicnay waa inuu qof waliba ogaado waayo inaa bari la isku xamilin baa muhiima moogta waa la odhan in alla shugri shalay da waddani waanu nimid oo waanu taageersanna waanu ixtiraamaynaa waa naad Soomaaliland waana xisbi jira laakiin aniga hadday noqoto u cid baan ma cidina xigto waa xisbi reer Soomaaliland oo loo diiyo ma iga baahan ana waan u baahan iyagu u baahan haddii laakiin bari aan ku arka madmadow aniga shugri baan leeyahay kala fiican baan tagaya marka runta idin sheego أنا واحد جعل عدالة واحد جعل السنان واحد كلنا وادي أختي أنا ودي قدال وأنا جاي واحد ينجح مثلا شغل والسومالي وين بطلع دي شغال الصوماليات معنا لكن ما كنا قطوة الله بشا ودني الله يسكمر دقو أنا بوانا بشا وأنا ندلنا يا وأنا كل من يهلك وأنا نحب waxaan halkan idinka sheegayaa horta in la duceysto ilaahay waxaan ka baryaynaa sida loo kala weeyaa loo duceysan jiray dumarka ducadooda way kacdaabaa la yidhi ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay Soomaaliland dejiyo in ilaahay idubada u aaso ilaahay waxaanu ka baryaynaa tafaraaraqa iyo kala fogaashiyaha iyo qalbi xumada in ilaahay naga dhex saaro ilaahay waxaanu ka baryaynaa xisbigii yimaada iyo dawladii timaadaba in sharaf iyo wanaag ay ku joogto ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay na xasiliyo qalbigeena xasiliyo jacayl iyo muxubbo iyo wanaag way naga beero ilaahayna waxaanu ka baryaynaa Soomaalida kale dhibaataysan waa dad ina la dhashay in ilaahay iyagana dhibta ka saaro saasayna inaguna wax ku noqonaynaa waxaanan rabaa inaan halkan ku soo celiyo Faysal waxaanu sameynaynaa xisbi dumar ah أنا نوع نقول ما الغيبة في سوى حنا كل جنبه ويا برا مستقبل سوى يا مستقبلك وهدي يعني ركوا يدك ركوا يدك حسبية الضمير بسرعة طالما من بين اللاول رالنا هلا يقولنا قد بحال حتى قبل سنة بس يدايو وحنا هاي ولا أنا بهاي شيء كان يدي شيء يا أنا ربنا نشيء جمال علي حسين مركو قبل سنة بريتوري برلمانka waa inuu dumarka insha Allah ta'ala uu ku badiyo oo cadkooda siiyo hilib badan anagu ma rabna intayada nagu filan hadaan dumar nahay waa inuu nasiyo hadaan maantaba inaga marka la inoo baahay ma dumar in la inagu guuro waa inuu inagu raadsana hilibkeena waa inuu raadsana dadnimadeena waayo meel dumar ka maqay nolol ma taalo waa idinka noo baahan waa idin qurxin meesha wanaga idin hadana waa idin maaha anaga beritoolena la yiraahdo marka la doorto doorashada ay timaado ee lagu soo guuro in la yiraahdo waxba la idin ma hayo taana ma yeelina dawladda waan ridayna hadii anaga hilibkeega la sii waayo dalka UK marka labaad waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u mahadnaqayaa hawshan halkan quruxda badan leh dadkii soo abaabulay oo hababo ay u badnaayeen haweenku ay u badnaayeen ragga qudhiisu kamay marnayn laakiin dumarka u badnaa oo soo abaabulay iyaga aad iyo aad baan u bogaadinayaa dadka waqtigoodii horay iyadoo dadku wada shaqaale yahay qof waliba markuu shaqadii ka yimi
hawshan xafladan iyaguna ku soo dadaalay inay yimaadaan oo weliba hooyooyinka u badan aabbayaasha u badan caruuraha iyo shaqada ka yimid aad baan u soo dhaweynayaa aad baan hambaliyo bogaadin ugu dirayaa intaa haddii aan muxuu ka gudbo dee horta hablaha show hadalka waynu ku caburi jirnay show murtidoo dhame hablahay ku jirtaa sida runtaa murti badan baa ku duugnay insha allah muxuuha shukur haybana waxayba tiri muxuuha cadaaladii markii la sugay waa tanoo dee dumarkii baa mikrofoonkii loo horeysiiyey weliba waanu sii kordhinaynaa dowladdana qaybtii aad muxuuha ku lahaydeen waa laydinka siinayaa xusbigana qaybtii aad ku lahaydeen waa laydinka siinayaa mikrofoonkana idinkaaba laydiin dhiibay haddii ilaahay ka dhigo aad ku cilbaxdeen horta hadalka ku cilbaxdeen intaan la gaadhin boosaska hadal ku cilbaxdeen horta mikrofoonkana idinkaaba laydiin dhiibaya taas waa taa haddii aan yar ka idhaahdo warqadan halka ku qoran waxaa laga dhiibay waxaa layidhi fariinta xusbiga wuxuu u dirayo taageerayaashiisa iyo shicibka reer somaliland xusbiga wucid in badan baa la sharaxay sharaxaad badan ugu noqon maayo laakiin fariinta uu u dirayo taageerayaashiisa iyo shacibka reer somaliland maxay tahay aan siyaasadda dib ugu noqono waxaan u malaynayaa qolyaha kale waxba ka sheegi maayo dada waan u qarinayaa malahana ugu weyn baan u malaynayaa dadkan in badanna waan soo taagnaa mi siyaasada waan arkayay xusbigan ucid ee imika jiray ilaa dhowr iyo 10 sannadood ee ah xusbigii labaad ee ka diiwaan galay dalka somaliland intii uu jirayba wuxuu ahaa mucaarid buu ahaa mucaaridnimada uu ahaa waxay dadku ku xantaan dadka qaarna waxay yidhahaan mucaarad jilicsan buu ahaa laakiin anigu waxaan leeyahay mucaarad jilicsan buu ahay mucaarad wadaniya oo jecel inuu waddanka ilaaliyo oo jecel inuu dhowro buu ahaa maantana sidii buu ku shaqaynayaa xusbiyada qaar markii ay doonayeen kursiga bambay qarxin jireen suuqay bambdhigi jireen yani waxyaabaha ay samayn jireen waynu ognahay ucid marnaba kumuu tallaabsanin wax in yar waxyeelo dalka kumuu tallaabsanin maantana ma doonayno in xusbi kale waddo khaldan uu jeexay aanu marno dalkaanu ilaalinaynaa nabadgelyadaanu dhowraynaa cadaaladdaanu ilaalinaynaa dee magacaaba lalama bixin haddii aan cadaaladda la ilaalinayo dadka la ilaalinayo haddaynu in yar imika halkaa dib eegno dalka iyo dadka ucid baa badbaadin kara u codeeye ucid horta fariinta uu dirayo wuxuu dirayaa taa weeye inaa u codaysaan ucid oo ku doorantaan habdhaqanka siyaasadeed ee uu leeyahay haddii intii uu mucaaradkaa uu sidaa u dhaqmo oo sidaa wanaagsan u soo dhaqmaa oo ilaalinaya dadka iyo dadka nabadgelyadooda oo u doodaya oo mar walba meesha ay siyaasaddu ka jilicsan tahay uu taabanayay maanta waxaan leeyahay waa in xusbiga ucid lagu abaalmariyo bal in isaga talada loo dhiibo oo la doorto xusbigu wuxuu leeyahay siyaasad wuxuu leeyahay siyaasadda maalinta joogtada ah wuxuu leeyahay siyaasada aan guurin siyaasadiisa aan guurin waxaa ka mid ah waad ogtiin dalkeenna waxa ilaa iyo ingiriiskii malaa wax garaad lahaa markaas wax kala garan baan baa jira baan malaynayaa maamul baa ka jiray meelihii maamulku markaa ka jiray baa weli wax laga maamulay waddankeena maamulku kuma fidin hargeysa iyo burco iyo boorame iyo dee degmooyin ahaa iyo muxuu aha ayaa laga maamulaa dalka maamulkaasu maanta wuxuu u baahan yahay in la fidiyo oo waddanku yeesho waddanka oo dham uu maamul yeesho waana mid kowka ah oo min badan oo guddoomiyaha ururka uu ku dadka ku guubaabiyey ama ku hadli jiray in maamulka la fidiyo waxaa waddankeenu markii hore 23 degmo iminka malaa ilaa 50 degmaa jira laakiin inta wax laga maamule ama golo deegaan le ama muxuu aha maamul dawladi ka jira waa 20 weeyaan waxaa markaa xusbiga wuxuu isku dayayaa oo ah kamida siyaasadiisa kamida inuu maamulka fidiyo oo meel walba gaadhsiiyo maamul inay degmahooda haddaynu imika ka hadallo degmooyinka ku xeeran hargeyso waa ilaa 10 degmaa ku xeeran waa wada degmaa la idhaha cidima joogto maamul ma yaallo
dowladnimaduna waxa weeyaan in maamulku fido meel waliba ay dowladnimadu ka muuqato maamulku ka muuqdo dadku ka muuqdo dhaqaale wada gaadho weeyaan marka waxa kamid ah oo in badan laga hadlay in maamulku lagu ballaariyo oo lagu fidiyo dalka oo degmo meel kastoo lagu magacaabo ay golaheeda iyo maamulkeeda yeelato taasaa keenaysa markaa in waddanka maamulka wada gaadho in dhaqaalihi wada gaadho in khibradii maamul iyo dowladnimo ay dadka ku ballaarato dadku ay ismaamuli karaan laakiin afartii meelood ee dhowrkii meelood ee ingiriisku uga tali jiro haddii weli laga maamulo dee dowladnimada inamaba soo gaadhin weli mabaynu gaadhin taas waxay ka mid tahay himilada mid bay ka mid tahay siyaasadda mid bay ka mid tahay intaa waxaan raacinayaa shicibka reer Somaliland fursad bay maanta u haystaan inay ka midho dhaliyaan himilada Somalilandnimada inay ka midho dhaliyaan inay hoggaanka aynu dhaliilayno ay bedelaan si nabada oo aan dagaal ku jirin oo wali ku jirin inay ku bedelaan ay maanta fursad u haystaan ay taageeraan xusbigooda waxaan leeyahay taageera xusbigooda si ay u bedeshaan hoggaanka maanta jira ee cabashadiisu aad iyo aad u badan tahay ku fogaan maayo waxaa suusanaya waxaa suusan ma oranayo laakiin cabashadu waa ogtida aad iyo aad bay u badan tahay dabcan waxaana way ka jiraa meel cidlaa laga cabo meel cabasho badan baa jirta haddaba si cabashada ay u bedelo waxaan u dirayaa shicibka reer Somaliland inay u codeeyaan oo taageeraan urid iyo yani baa ka dugsanayna waxa weeye waxaa halkan inoo fadhiya laba nin oo intaynu dowladda ahayd dhashay oo koray oo maskaxdooda aanay gumaysi bacday marka taaqubeeda waa in laga faa'iidaysto waxaan kaga baxayaa fariintaan u dirayno ee xisbiga u dirayo taageerayaasha iyo xubnaha iyo howlwadeennada lagu kori maayo ama lagu fadhiisan maayo hawlyadi iyo hadal meel miisan laga yiri kursiga mudan ama dowladnimada lagu hanti maayo waxay u baahan tahay oo aynu ku bedeli karnaa dowladda maanta jirta oo aynu kursiga ku gaari karnaa oo idku hanti kara hoggaanka dalka hawl badan aad u badan oo la galo abaabul badan oo la galo waqti badan oo loo huro dhaqaale badan oo loo huro innaga haddaynu nahay reer dhulka qurbaha ama aan iskula daray dadka qurbaha joogaba waxa ugu badan laga helaa waxa weeye dhaqaale waxaan markaa ku guubaabinayaa xubnaha iyo taageerayaasha iyo howlwadeennada wali inay ku dadaalaan oo labanlaabaan oo afar jibaaraan hawshoodii dadaalkii ay walba ku jireen inay kordhiyaan si ay uga midho dhaliyaan ayna uga midho dhalino himiladeena siyaasadeed ee ah inaynu hoggaanka dalka aynu muxuu gacanta ku dhigno dhaqaale laynooga baahan yahay howlwadid badan baa laynooga baahan yahay inaynu hawsha gudaha ka qayb galo mararka doorashadu ay jiraan aynu tagno oo aynu ka qayb galaabaa loo ka ololeynaa baa laynooga baahan yahay sidaynu halkanba uga ololeyno marka dowladaha hoose iyo la dooranayo muxuu ahaa ama dowladda sareba la dooranayo waa inaga ka ololeyna waa inaga u orodna waa inaga u codayna marka maanta Kenya ayaa u baahan inaynu sidaas oo kale uga ololeyno midda kale waxaa siyaasaddu waa inay iyadu ku baahnaataa aanad adigu u baahan ucid waayo waa inaga waa shicibkii Somaliland in ka mid ah waa kii u adeegaya ummadda oo ummaddu ay u baahantahay ummadda isu taagay labadaa nin dhalinyarada maanta halkaa ku sawiran cabdirashiid xasan bataan iyo jamaal cali xuseen iyo sidoo kale faysal cali waraabe way iska tegi karaan baridu waa niman madaxa way iska tegi karaan marka waxaan leeyahay qaranka ayaa u baahan Somaliland ayaa u baahan maskaxdooda ay u baahan yihiin fikradooda ay u baahan yihiin marka taa aynu ugu baahan muxuu ahaa shicibka Somaliland wixii way u baahan yihiin xusbi toosiye oo himiladooda ka midho dhaliya way u baahan yihiin marka waxaan leeyahay kusoo gobaabinaya ama kusoo gunaanadaya aan taageerno alla taageero xusbiga wixii ha loo codeeyo ha loo dadaalo hawshiisa dowlad iyo gudaba aynu ka qayb qaadano assalaamu calaykum waraxmatullahi
waxaasoo dad inay meesha iskugu yimaadaan waxaanan kasoo jeedaa gobolka awdal waxaanan dadkayga farayaa inay always ay taageeraan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID waayo Jamaal waa nin in badan la soo shaqeeyay dad ajaaniba aan qofna raadiskiisa duusi karin marnaba markaas waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay inay dadkayagu u taageeraan xisbiga UCID waxaanan aad uga soo horjeedaan aad uga xumahay cadaalad darrada ay dawladda siiraayo dadka reer awdal ku hayso ay noogu celisay 1998kii oo dad in badan dadka oon waxba samaynin ciidamo la dul keeni jiray taasina waa waxaananu marnaba aananu aqbali doonin aananu accept garayn doonin marka waxaan dadka dhan mar labaad iyo mar saddexaad u sheegayaa inay taageeraan Jamaal Cali Xuseen iyo Cabdirashiid Cali Mataan oo ay xuquuqdooda raadsadaan inta hadhay waayo adduunka wax yar baaba hadhay qof kastaana xaq wuxuu leeyahay inuu raadiskiisa helo maaha wixii in laga dhigo mashruuc oo laga dhigo wax maalin walba soo noqnoqonaya waxaasina waa wax foolxun dawladda siiraayana waxaan u sheegayaa inay tanaasusho oo inta yara u hadhay wayba sii socotaaye ay danaheeda ay dadka ixtiraam iyo akhlaaqan kula dhaqanto muddada yara ee gaabane u hadhay inta ay imanayaan dadka ehel sharafka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadkii soo qabanqaabida xafladda quruxda badan leh reer UCIDna waxaan u sheegay meel walba ay joogaan muddada inoo hadhay aad bay u yar tahay ee ka hadhay doorashooyinkii waa inaynu nafteena iyo maalkeenaba aynu u hurnaa xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ee UCID intaas ayaan nagu dardaaraya hadalkayga dhan waan ka baxaya aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Raxiimo Ismaaciil waxay ahayd gabadh Somalilandra ka soo jeeda gobolka Awdal kana tirsan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCID gudoomiyaha Yurub ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waana aad saaxiibnahay inta badan isku dhex jirno marka wararka qaarkood waxa iska kaya laaqma xilalkan kala haynaba Siciid saaxiib soo dhawow gudoomiyaha qaaradda Yurub iyo waxqabadka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Absolutely. بسم الله الرحمن الرحيم كيف سوى مع سنته واحد مدعين لقوا قاعد سنة غنينا دي لو ديهم وحكينا مشروع عن تليفون بعد الله يرحمه كيف هي كذا وقت اوكي بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka ugu horeysa idinku salaamaya salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan marlabaadka u mahadnaqayaa dadkii soo qabanqaabiyey xafladdan quruxda badan leh oo runtii dumarka ahaa annaga raggeedu wax yar baan ku lahayn waxaan leeyahay horta dee xaflad qurux badan baa noo soo diyaariseen jasaakumullah waan idinku mahadnaqaynaa waanan idin soo dhaweynaynaa intaa haddii aan dhaafo waxaan doonayaa inaan soo dhaweeyo walaalahay oo ka tirsan xisbiga UCID oo inooga yimi waddankaasi Ingiriiska ama UK waa Fuusiye Cismaan oo gudoomiyaha abaabulka iyo qabanqaabada ah waxaan kaloo soo dhaweynayaa Nuura Ciise Omar oo ah xogayaha guud ee Yurub waxaan kaloo soo dhaweynayaa Raxiimo Ismaaciil oo imika iga horeysay oo ka timi Bristol saan jecelahay waxaan leeyahay Raxiimo walaal soo dhawow oo UCID Bristol inta haddii aan dhaafo dhammaan martida sharafta leh madaxda UCID dumarka ragga kulligiin waan idin soo dhaweynayaa waxaan doonayaa inaad mar labaad idinku salaamo salaanta diinta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaan wax yar idinka taabto waxaan ahay gudoomiyaha qaaradda Yurub ee UCID muddana xilka waan hayay intii aan xilka hayay waxaa noo surooday in aanu laamo ku yeelano qaar horena waanu lahayn laakiin ilaa 8 waddan baanu maraynaa imika haddii aan idin yara taabtaabto waddamada aan ku leenahay waxa ugu horeysa Finland
laanta Finland ucid waa laan aad iyo aad u xoog badan waxa ku xigta waddanka Sweden oo iyaduna runtii aan ku leenahay laan xoogan oo xaflado waaweyn ku aragteen idinkuba inta internetka la socota waxa Norway oo runtii marka qaybtii naga harsaneedna la sameeyay Denmark ba ku xigta oo bari dhaweyd soo furay iyadana Holland waxaan ku leenahay laan adag iyadana sidoo kale France ayaan ku guuleysanay wax yar bila ka hor baan malaynahay markii ugu horeysay ucid France ku yeelato laan halkaana waan ka furay waxa ugu weyn laanta ugu weyn waa laanta UK United Kingdom oo markaa aan ku leenahay xafiiska ugu weyn London dadka ugu badan ee sida ogtiina Somaliland dadku waa Ingiriiska degan yihiin waxaan kaloo aan ku leenahay laamo Birmingham Bristol sidaan qabo Cardiff oo maalin dhaweyd la furay waxaan u maleynayaa Manchesterna waxbaa jira markaa waxa weyn waa laanta noogu weyn runtii oo ay maanta nagala joogaan saddexda gabdhood ee walaalaheen nala jooga runtii aad baan u soo dhaweynayaa waa laanta inoo ah Europe madaxda baan oran karaa waa laanta yani noogu tirada badan leh waa laanta aan isku hadlaynayno marka imika uu bilaabo arrimaha dagaalka inta haddaan dhaafo xisbigu qaarad ahaan runtii meel wanaagsan buu noo maraya imika waxaan ku xigsiinaynaa haddii ilaahay nafti noo daayo Belgium magaalada Brussels oo runtii ah udub dhaxaad Europe oo ku yaala European Unionkii xafiiskoodii waan doonaynaa halkaan inaan xafiis fiican ka furano waxaan kaloo iyadana ku tali jirnaa waxaana laga soo hadlaa Spain Turkiga bal idinku ka warrama ucid Spain iyo Turkiga meena cajiib ahayn waxa weeyaan mustaqbal fiican ayaa ucid u soo socda xawlina waan ku soconaa dad badan baa runtiina soo gelaya dadka qaar waxay nagu dacaydeen waa laydinka baxaa waxaana soo gala annaga dhalinyarada waxaana soo gala haweenka markaa shaksi hadduu naga baxo ama laba qof hadday naga baxaan ha u qaadin in ucid laga baxay intana soo gelaysa ayaa ciidda ka badan maalin dhaweyd tviyada waa arkayseen musharaxa madaxweynaha inkastoo dowladda waxoogaa isbaarar yar u dhigatay haddana waxa weeyaan xawli mawjadihii way xijin kari waayeen meel la kala maraa la waayey dadka runtii ucid ku dhisan tahayna waa idinka dumarka waa dhalinyarada ma aha cid kale haddaan intaa ka sii socdo doorashooyinkii baa soo socda maxay ucid ku gelaysaa ucid waxay ku gelaysaa musharaxiinta dhalinyarada mutacalimiinta ee la soo shaqeeyey internationally adduunyada la soo shaqeeyey maanta adduunku waxa isku haystaa war yaa la shaqeyn kara international Europe baa la isku daray Mareykankii baa halkan soo taagan Ruush iyo gruubo kala jira yani adduunkii haddii aanad la qabsan internationally oo aanad la shaqeyn karin runtii dhibaato kugu iman karta waxaan aaminsanahay Jamaal Ali Hussein oo runtii ka soo baxay jaamacadda kuwa adduunka ugu qaalisan ee ah jaamacadda uu ka soo baxay Obama mala dadka qaar ma ogeeyeen Obama iyo Jamaal Ali Hussein isku jaamacad bay ka soo baxeen haddaydan ogeyn waa nin aan ku kalsoonahay waa nin wax ka bedeli kara maanta habka aynu soo gaadhnay mar walba marxalad bay Soomaaliland soo gaadhaysay dowladda kulmiye wax badan bay qabatay been ma sheegin ma aha inaan xagxagto dowladda kulmiye wadooyin bay dhistay inkastoo la caawiyo dadku ay caawiyeen waxa laga bedelay bariga lacagtii bariga waa la bedelay darajadii bay bixiyeen wax way qabteen laakiin waxaanu leenahay war maanta annaga ayaa idinkaga habboon annaga ayaa idinkaga wanaagsan annagu waxaanu doonaynaa inaanu dhalinyarada shaqaalaha ee shaqo u furno waxaanu doonaynaa in la joojiyo taariibta runtii waxaad moodaa qabyaalad waxa la yidhaha inay furantay taa laftigeeda barnaamijyadii waa noo diyaar aanu kaga hortegi lahayn ee la keeni lahaa dadku si ay isu dhex galaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka sida uu sharaxayo magacuba cadaalad waa muhiim waa maxay cadaalad maalin walba waa la isweydiiyaa war cadaaladdu waa maxay cadaaladdu waxa weeyaan maxkamadeennoo la hagaajiyo maxkamadeenni goorma idinku dambeysay haddaad subaxii tagto kuyuu dheer baa lagu jiraa dadka qaar waa iska soo noqdaanba iyagoon kiiskoodii la furin ninku waxaa laga yaabaa inuu iska baxo markuu doono xaakimkii markhaatiyadu qaar laba huba maaha waa niman iska dhaaranaya markay doonaan ciday doonaanna waa u dhaartaan booliiskeenna waxaad moodaa in wax badani ka maqan yahay maanta haddaad lacag haysato oo lacag soo qaadato ninkaad doontaad xidhaysaa hargeysa dhexdeeda waa inaad qofka jaadka u qaado
dee taasi maaha taynu doonayna xisbiga cadaaladda iyo daryeelku wuxuu doonayaa in aan qofnaba xuquuqdiisa lagu xadgudbin oo aan laga qaadin sharaftiisa waxaanu doonaynaa saxaafaddu inay xor ahaato maaha Jamaal Ali Xuseen maalintu meesha ku fadhiisto inuu yidhaahdo wargeysyada soo xidha dee markaa annagaaba kasoo horjeesanayna isaga waxaanu u baahannahay idinkaanu idiin baahanay walaalayaal sidii aanu haddaba hoggaanka u gaari lahayn idinkaanu idiin baahanay dee horta mar walba marxalad baa la soo marayo doorkii hore dad badani waxay lahaayeen kulmiya ku habboon doorkii kasii horreysana udub baa loo footeynayay maanta waxaan leenahay ucid waxay soo gaadhay waktigii jaaniska nala siin lahaa maadaama aanu dad cusub oo cilmi leh oo garanaya farsamadii adduunka looga soo shaqaynayay aanu wadno waxaanu doonaynaa inaad taageeradiina na siisaan taageeradu ma aha untii waddankii waxaanu ka sugaynaa taageero laamaha dibadda ayaanu taageero ka sugaynaa waana muhiim taageeradiinu taageero noocmaa baad bixin kartaa waa adigoo nagala soo qayb gala qaadhaanka la bixinayo bishiiba mar waxaad kaloo samayn kartaa markay soo gaadho doorashadu runtii doorashadii lama cilaamin laakiin waan ku rajo weynahay dowladeennuna way tiri madaxweynaheena wuxuu ku ballan qaaday inaan maalin loogu dari doono dee waynaan hadalka madaxweynaha anagu siduu yahay u qaadan isaga ayaa waddankii maamula isaga ayaa furi haya wuxuu yidhi maalin laygu dari maayo sax baanu leenahay madaxweyne ku soco maalin yaan lagugu darin diyaar baanu nahay haddaan anaguna coodnahay diyaar waxaanu nahay inaan doorashada gallo diyaar waxaanu nahay inaan soo sharaxno dhallinyarada cusub diyaar waxaanu nahay inaan cod ka helno dumarka iyo ka dhallinyaradaba runtii insha allah waxaanu jecel lahay inaanu kulmiye 10 eber diro markay doorashada timaado waxaan maqlayay mujaahid musabixi gudoomiyaha kulmiye oo yidhi ucid 8 jeer baanu diray annagu waxaan kulmiye diraynaa 10 jeer intaasina waa iga kaftan qolada kulmiyaan ku yara tuurayo waa iska caadi siyaasaddu waa la yara kaftamaa wax xumaana maaha kulli Somaliland baynu wadanahay dhammaanteen mucaarad iyo muxaafidba waxaynu u soconaana waa mustaqbalka in ictiraaf la helo walaalayaal oo aynu Somaliland ictiraaf gaarsiino hadafka ugu weyn ucid ay laftigeedu leedahay maahun cadaaladda iyo daryeelka waa ictiraaf dhab ah oo runtii aynu u baahannahay mandaqadu u baahan tahay dadka kale walaalaheena Soomaaliyeed laftigeedu ay u baahan yihiin inay helaan dawlad isgarab taagta oo wax ka tarta waxa qabaa ictiraafka Somaliland inaanu Soomaaliya wax u dhibin waxa qabaa ictiraafka Somaliland inuu wax u tarayo Soomaaliya waxa qabaa inuu Djibouti wax u tarayo waxa qabaa inuu Ethiopia wax u tarayo in dawlad ammaana oo la helo nabada laga helo mandaqadaas waa muhiim weeyaan maadaama waxyaabo badan soo mareen al-shabaab baa joogta waxyaabo badan baa lagu sheegaa dadku waxay u baahan yihiin settlement inay degaan bay u baahan yihiin tahriibta inaga yaraan leh shaqooyin baa la helaa shirkadii baa lagu soo dhiiran la shirkadii badroolku maalin walba kaninkii taagan been idin ma sheegayo anigu markii hore been baan moodi jiray marka la yiraahdo Somaliland badrool baa ku jira laakiin waxaan soo ogaaday markii aan arkay shirkadaha Norway in aynu badrool leenahay inaynu badrool badda ku jira leenahay inaynu mid dhulka ku jira leenahay war waxaynu u baahannahay ictiraafka haddaynu helno waxa dhacaysa in badroolkeena noo soo saaro inaynu inaga shaqada noo soo doonto been idin sheegi maayo maalin baa imanaysa Somaliland loo soo shaqo tagi doono aad baan runtii salaamaya waxba hadalkeedu ku badan maayo waxa jooga qolooyinkii muusiga oo runtii xagga ay iga khatarsan oo iyaguna heesahoodii waxoodii diyaar yihiin marka waan aad baan idin salaamaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد محمد آمين قدوميها قارد يوروب يو قبضك حسب عدالة يدري الكاد وضع مصن صاحب يمكن هذا وانا سمع صحيح. وفي لي أقول كلها قوم كعيار سعيد صاحب كي لكن وين يرد بيسات هذا محمد شيرة يو موارد بروناي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي ما هذله وحنا ما هنقيا hablaha sida fiican u soo hagaajiyay xafladan ay isku nimid waxa kale aan soo dhaweynaya hablaha inooga yimid UK ee xisbiga ucid waxa salaamaya dhamaantiin marti sharafta halkan isku timid assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh mar labaad kulli
waxa weeye hadal anaa hadhay looma hadlay waa la hadlay waxaan rabaayo maanta aad ii farax gelisay waxaan u malaynayaa aniga iyo qolooyin kale oo aan sidaa usii badnayn inaanu nahay qadiimigii ucid ilaa waqtigii 2003gii ucid markii la furay xisbiyada magaaladan aynu joogno Oslo ama Norway waxaan xasuustaa iyadoo lagu qaaday fawd dadka joogay ee degan wuxuu noqday number 1ka intii ka dambeysay duufaana ayna dhayar dhex galay waa la yar kala biiqay runtii laakiin haddana waxaa alxamdulilah inay dadka dib iskugu soo noqdeen ucid markaynu ka hadlayno waxaa la yidhaahdaa ucid muxuu kaga duwan yahay xisbiyada kale waxa weeye waxaynu odhan karnaa ucid waxa weeye ma aha xisbi loo samaystay one time use oo maanta xisbiyadeenna runta markaynu sheegno ay u badan yihiin in loogu talagalay in lagu gaadho kursiga ugu sarreeya in lagu fuulo kaa ucid maaha wuu ka duwan yahay maaha mid loogu talagalay in kursiga ugu waxaana caddayn ku ah waxa weeye xisbiga keliya isagoo mucaarida hogaankii isbedelay ee magaranaysaa in lagu bedelay la isku bedelay ilkaas oo ay qadaar waxaan rabaa waxa weeye cadaalad baa laga hadlaa waxa qiiro gelisa mar walba oo aan magaranaysaa wadankii aynu joogno waxa aad uga qiiroonaysaa garsoorkeena maanta halku ku sugan yahay garsoorkeena waxa ugu sareeya makaxamada sare waxa jira guddi cadaalada la yiraahdo guddida cadaalad waxay ka koobantahay 10 shakhsi waxa ay daraa 10ka shakhsi afar kamida mooyaane 6 kale inaanay aqoon u lahayn wax garsoor la yiraahdo iyo shuruuc toona waxay meesha u joogaan kaliya inay darahooda gaarka ku fushadaan dawladda waxaan ku codsanaa iyo madaxweynahaba in garsoorka wax laga qabto oo lagaga bilaabo in guddida la bedelo maanta waxaad moodaa dadkeeni inay u soo jeedaan oo ay magaranaysaa dantoodii karteen oo aanay qabyaaladii inaanay waxba tarin qabyaaladu ee qarannimada meel lagu gaadhayo ay tahay waxaan hadalkayga anigoo aan sii badinahayn aan kusoo xidhayaa maanta tixuu tiriyey muxuu ahaayey abwaankii ibraahim garle ilaahay u naxariiste tixdaas maantay taagantay baan u malaynayaa tixdaas midcu ka mid a oo soo qaadanaya waxay odhanaysay magacaagu yuu noqon mid xumaan ka barakaca sida macawisaha qaar midba yaanu maalin xidhan hadba kii muraadihi ha uga dhigin maqaarsaan mar waxaad dhadhamisiyo mijin qaada ha u dhiman reer somaliland maanta inaanay mijin qaada u dhimanayn baan malaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsantihiin guddoomiyaha iyo gudoomiye garabka dhalinyarada ee laanta Norway ilka casi saaxiib ma cid salaam ilahado okay waxaan jecelahay inaan inoogu yeedho gabdhihii martida inoo ahaa si ay laba kelmadood inoo idhaahdaan waxa weeyaan Nuuro Ciise Omar iyo Foosiya Cismaan fadlan mikrofoonka kale maamuuska lagu xusayay oo loo sameeyay maanta garabka haweenka oo markii horena dhisnaa laakiin in muddo ah hakaday Oslo waxaan aad ugu faraxsanahay aan happy ku ahay mar walba soo dhaweynayaa xubnaha halkan laga magacaabay Shaadiya Mamuuna Hodan Naja Ruwayda waxaan kaloo aad ugu hambaliyaynayaa Saciid Maxamed Amiin oo ah gudoomiyaha qaaradda Yurub oo runtii waxyaabo badan ka soo qabtay Yurubta laamo badan ay noo soo dhisay iminka markii socodka ugu dambeeyana ka yimid Frankfurt aad baan isagana aan hawsha xisbiga u qabtay aan ugu hambaliyaynayaa waxaan kaloo halkan aan ka salaamayaa madaxda xisbiga شرح حسبك شمال علي حسين كحجان كيسا عبد الرشيد حسن مكان
gudoomiyaha xisbiga cadaaladda daryeelka mudane injineer Faisal Ali Xuseen Faisal Ali Waraab taqaanaan dhammaantood salaamin halkan ka salaamaya waxaan halkan anu hadalkii wala wada yiri oo hadal badan uma imanaan neeraho laakiin waxaan ku talagalnay oo anaga iyo Foosiya iyo in kale naga hadhay baan halka uga soo uga nimid UK uga nimid inaanu garab siino oo inu saawino oo inu isdiirigelino xisbiga cadaaladda daryeelka meel fiican u maraya xisbiga cadaaladda daryeelka wuxuu u baahan yahay inaga maanta aynu ku caawin karnaa maadaama inagu nahay dadkii qurbaha joogay special dumarka waa inaan xisbigeena daacad u noqonaa waa inaan inaga waxaan geli karnaa meelo badan sidii dhaqaale loo sameyn lahaa sidii loo abuuri lahaa waxbaraha maadaama 6 bilood inoo harsan tahay waxba inoo ma harsana sheefka gacanta hala geliyo rag iyo dumarba ya garabka haweenkuna wuxuu ku si fiican yahay oo ku dhaamaadee ragga waxyaabo badan meelahaas wax ka soo qodi karaan marka dumarka aad tihiin waxaan idin kula talinayaa xisbiga anigu waxaan ahay gabadh ilaa Australia socotay runtii garabka haweenka Australia qaaradda sida aad bay u dhisan tahay waana website-da ka aragteen mooyaane marka walaal waxaan kula talinayaa sheefka gacanta geliya xisbi 6 bilood bay noo haray hadii ku guuleysanayaa hadii ilaahay deeno ku tala galay laakiin maxaa ka horeeya dhaqaale وين دقالة سمية وين البابا كو قرعدان وين لعقت يرى membership كان إسكا قرنا مو يعني تاسقف البو كو قرسي membership كانوا بحيو هو بيشي وحلا بحيو لكن كو حنو باهن هاي لعق إنكو نحن قالوا كابين كانوا باهن هاي هرجيسة ما تقدر تعمل هرجيسة كل يوم يعني أوران سومال لأن أوران قف إلى شيء كلوب بحشة بحلو جليو ومشيت تعرف كلا سيو أحبكم ما قمناي أبعد ولا بشيرون ما كده ما عيالكم بالوجوه سلدي ما كان عيال هذا ما كان وحين نجيل على سام إن العيال هاي نوع هالجمية يا نوع محنكورها كتير دنيات أدو في عن هاي أدو نوع تاجرتها بلوحي ما عرفت أنا كده هرتج لهاي لفت تقول إن نوصل شيء سنة أنا يجنا إلى علينا إن شاء الله بإذن الله الكريم ده كل يوم بدو نسكت نقندونا حفلة كلا نبى لقى سمينا يا إما كواحد إنه يلا حد ما أنت لقى بلاوي إنه يلا سيدا أنا وصل مثلا هاي لقى أوروريس يو محنكور حمنا في فرعون قرب كهوان كانوا دي بنسكت نقندونا سبت الله سيدا يقول سي يو كسب عمل دسنا هاي وحيابا ينكدمنا أنا يعني إني شو حسبي عدالة الدرية كمان كلها حفلته إلا أركين دك سافر كلا وضع فديان إن دك كاركو صحافته إن أنت شرطه كراسي مرة أيوصل دكتور صحافة ولا ندورته صحافة داي شرعي عمر وسيد فنا كوا سومالي وين بوجوه يسوع أدو صحافة بات هاي سكسارين ميديا السلام عليكم وعليكم السلام يا سلامة إسلامك سلامك بعدي دمان مدحضة يحبناها أنا أقول من نروي السيدة في عنده سودوية عسومة الناظر باي النايري إن نسبرنا وحندلنا هاي السلام عليكم أنا أقول لكم السلام يا سلامة إسلامك مرة هدان وحير إذا كتعتبته حسبك دريالك يا عدالة وكجد ويها حسبية ذكره أو أنه كجد ونهاي ولما أيدعين لما رأرك حسبي إما كوح لقوا حساب تمية ملحوين وكك ساعد هذه بعد ما تي إنك قدوميه إنه مركب وأركي يا وادي كروتك وحوادي كرا نوح برتي وعلم له ما دام إنه قربة وصابحني ما دام إنه وحبرني ما دام إنه وحبضن أو إنه جمعنا إنه حتى عرفنا وهي وقت جاي بتشايل كعين معه إما كوح إنه بهنا هاي وحقول له إنه ما أنت ودك كانوا ودي يرقنيه دي بدنا إنه بهنا بمعها إنه ما بهنا بمعها وأي هدي إنه بعديه ندب وقلنا قلنا حولها أدوك وقيمة يقايها بدن بين لنا هدي إنه لا قدر ريجك الله سميه سيريال أي لقى حلو طاقة وحين سمين كنا أدونك أينو يبقين كرنا وحين سمين سن كرنا ورشدو قف بالآدم أو شغال عليه إنك قاعد يكرتها مجرده حقي بيرها تبي حتى إنه بيرها إنه بيرنا أو إنه ورشدها كسمين سنة وحين صوص عارك كرنا قدرتي أدونك أو قيمها بدنا أو إنه أدونك كيبين كرنا عدي مركا علمي قال حينا وحا أي نغنيسا وإنه ورشدها
iyo xafiisyada iyo wasaaradaha nin waliba wixii uu soo bartay inuu wadankii dib ugula noqdo oo uu wadankiisa ugu faa'iideeyo ayaynu maanta u taaganahay wadankeennina inaynu badbaadinaa baynu u taaganahay anigu waxaa ka mid ahaa ardaydii 90kii dhagaxa tuuraysay haddana maanta shalay waxay ii wadi caadifiyadu waala maantana waxa aan ku noqday 90kii baan dib ugu noqday 80kii baan dib ugu noqday laana markaan anigu dhagaxa tuurayay waxbaan diidanaa qabyaalada maanta timina waan diidanaa maantana isagoo aan shalay diidanaa in dadkii lagu dhaqo oo jeelashii buuxsamaan oo dadkii maatida haa la xidho oo cashuur aanay qaadi karin waayo inagu waxaynu nahay shilinka doolarku inaga malyihiin wadankeeni waxaa lagu isticmaalaya waa doolar waayo lacagtaada isticmaal dadkaaga miskiinka ee dhebel cashuuraha lagaga dhigayana aynu uga jabino biyaha biyo-la-aan baa wadankeeni haysata aqalada ugu quruxda badan baa laga dhisay biyana ma laha inaynu biyaha gelino inaynu leyrka gelino inaynu dadkeena masaakiinta kor u kicino oo aynu inagu dib isu eegno jaamacadaheennii baa yimi bal tiifiyada waa daawataa maalintii imise jaamacadood ay carruurtu soo qalin jabisaa waayo sanis haddaad ilmaha jaamacadda ka baxay aad tiraahdo bal wax ii qor kuma qorayo laanno ninku $200 ninka jaamacadda leh $200 fiida ah uu ardayga ka qaadanaya buu eegaya waayo waa habbaaseen imtixaan wax dhacaaba ma jiro marka inaga maanta waxaynu u baahannahay siiba dumarka iyo carruurta labadaasaa kii siyaadba riday arday baan hanteenu ku ridnay maantana ardaydu waa inay kacdaa oo indhaha furta laanno badihii bay ku dhammaadeen laanno qurbihii bay ku baabi'een qurbaynu joognaa 95% hooyo aan hoos u ooyaynin inaguma jirto waayo maatideenu way ba'day way tagtay waayo wadan qaliyaad leedahay umaba baahnid wadankaagii baad leedahay dee wadankaagii seef garayso oo wadankaagii ku noqo oo waxaagii soo saaro waayo wadankeenu waa feerjan wax aan oolin oon ku jirin ma jiro badaheennii baa buuxa dee anu waxaan odhan lahaa maanta wixii inagu dhacay way inagu dhaceen laakiin maanta aynu badbaadada carruurteenna dhalan doonta iyo kuwa jeelasha Yurub ka buuxa iyo kuwa xeebuhu qaateen iyo kuwa hargeysa ku balanbalaya intaba odayga weyn ee inankiisa inuu badaha u tahriibo doonaya ee isagu kursiga isku eegaya ee $1 la siinayo ku iibsanaya waa inay odayaashu dib u fadhiistaan waa inay odayaashu dib u arusha jeelasha ku jirta iyo lifeka ay baaba'een dhaqan iyo nolol la'aan bayna haysataa waa in maadeerayaal odayaashii hore waa inay dadku dib u noqdaan waa inay kuraasadana loo baneeya waa inay dadkii tacliinta lahaabaa maanta wadankii badbaadinaya tacliinta lihina waa xisbiga cadaaladda iyo ama ila joogaba qof walba inta dib isugu noqoto waxa hooyo balanbalaysa iyo waxa aaba balanbalay waxa burburka in haysta inta aynu dib u eegno wadankeena aynu badbaadsano ucud baa maanta idin baahan iyada idin badbaadinaysa qof walba fartaadana si shilin kale u assalaamu calaykum dhiig cusub sidii kuwii aad maanta halkan ka arkayseen oo kale waxay haysaa fikrado cusub waxaanu haynaa xalal cusub dhiig cusub xalal cusub fikrado cusub kuwaasaa waxay keenayaan isbeddel waxaa ka mid ah isbeddeladaanu samaynayno sida ay odayaashii iga horreeyay gabdhihiiba xisbiga cadaaladda iyo daryeelka magacan iskamuu bixin labadan kelmadood ee meesha ku qorani waa muhiim aadamaha noloshooda waa muhiim waa waxa keliya ee Somaliland ilaa maanta rejiim kastoo yimid iyo nin kastoo aynu dooranay cadaalad lama helin daryeel lama helin dadka danyarta waxay imanayaan labadaas marka xisbiga cadaalad iyo daryeelku u qabsado sidee ku imanayaan wasaarad cadaaladeed baanu samaynaynaa wasaaraddeeda cadaaladda u ekaan mayso tada madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraaya maanta maxkamadaha ay kuwa u ekaan maayaan booliiska iyagu kuwa u ekaan maayaan booliiska iyagu
dadka ugu dhici maaya aqalada habeenkii aariyuuda waxaan u diraynaa meeshii loogu talagalay qof aan maxkamad loo haynin warqad looga soo qaadin aqalkiisa albaabkiisa la soo garaaci maayo gurigaaga gudihiisu xor baa tahay waxa gurigaaga gudihiisa askari soo gelin karaa maxkamad inta la geeyo warqad laga soo qaaday dabeetana maxkamadda guriga lagugu soo galo difaaci mayno nin dembi leh laakiin waxaanu difaacaynaa nin muwaatina oo aan waxba samaynin in xabsi la geeyo in hantidiisa la xidho maanta waxa xidhan oynu ognahay dad baa meelihii ay ku shaqaysanayeen laga xidho sharci cidina kuma dhaqanto sharciga maanta waxaan ku dhaqmi doonaa sharciga boliiskayga wuxuu noqon doonaa wuxuu hoos tegi doonaa cali waran cadde xukumi maayo boliiskayga boliiskayga waxaa xukumi doonta wasaaradda cadaaladda muxuu ka hoos qabanayaa ninka boliiska ee sharciga ilaaliya muxuu ka hoos qabanayaa wasiirka arrimaha gudaha soo maaha inuu dadka usoo xidhxidho waxaanu hoos geynaynaa mid cadaaladda u dira waxaa la samayn doonaa daryeelkaasi muxuu ku maqan yahay dee mid baa wixiiba cunay keligii wuxuu cunayaa iskuulka daaqadihiisii wuxuu cunayaa jidkii aqalkiisa hormari lahaa wuxuu cunayaa dhakhtarka sariirihii ooli lahaa hadhowna wuxuu odhanayaa dhakhtarkii hargeysa si u egayahay maad aragti iskuulka carruurta waxba ma yaalaan oo sawdigi dee adigu cunay halkaa daryeelkaasi lacagtaasi waxay ku imanaysaa inagoo la dagaalano waxa musuq maasuqa la ydhaha ereyga musuq maasuq inagu waxaynu naqaanaa inuu lacag tahay waxa musuq maasuqa xafiisa timid ood xaq u leedahay oo xaqaagii lagu siin waayo mar kastoo sharciga lagaa jiriyo waxaad xaq u leedahay waxaa weeye musuq maasuq marka waxaa jira musuq maasuqii lacagta waxaa jira musuq maasuqii xuquuqda kale aad leedahay wax kasta oo aad xaq u leedahay ood sharci ku leedahay marka lagu diido waa musuq maasuq inagu ereyga hadii goraalo lacag unbaa loo nisbeeya lacagta waxa ka xun xaqaaga lagu diido kale markaynu xuquuqda aynu dadka u sugno daryeelkii dadkuna u imanayaa lacagta uu ninka keliya cunayay ayaa waxay u tegaysaa dadkii loogu talagalay in lagu daryeelo wasaaraddaasi wasaarad daryeel baa imanaysaa markii ugu horreysay somaliland wasaaradda daryeelka oo ka war haysa dadka gaajoonaya oo ka war haysa dadka danyarta in isdaweyn karin oo ka war haysa qofka aan iskuulka geli karin ayaynu samaynaa lacag waynu ka buuxnaa lacag way taallaa waddanka laakiin sidii loo isticmaali lahaa baan loo isticmaalay qofka dawarsanaya waa inaad eegto qofkan qiimihiisii baa baaba-ay qofkan gacanta kuu soo taagay muu jeclayn adoo kaluha inuu ku baryo muu jeclayn duruuf baa halkaa keentay haddaad mas-uul tahay markaa duruuftaasi inaad wax ka qabato wey waa inaad xal la timaado dowladnimadu maaha askar iyo military aad meel la socsocoto dowladnimadu waa dadka oo dhibaatooyinkiisa xaliso dowladnimadu waa inaad dadka halkan yurub baynu soo galnay maraykan baynu tagnay dadka xuquuq bay leeyihin oo loo qabtaa iskuulkii bay xaq u leeyihin carruurta iyo dadka waaweyniba caafimaadkii baad xaq u leedahay wax walba waxaasoo service ah inay dowladdu qabato wey ninkii wuu ka hawl yaraysanayaa wasiirka awooddii madaxweynaha wuu ka soo qaadanayaa waxa laaliya wixii xil u qaadi lahaana wax kaga imanayaa madaxweynaha miiskiisa madaxweynaha laftiisu dhan malaha umaba dhiibto wax uu ninkan u diranayaa ma jirto wasiir baan kaa dhigun buu leeyahy okay awoodaysi laakiin haygu daba socon waxba imaa diran dabeetana awooddii uu siduu doono isticmaalaya inta loo yeedho la xisaabin maayo waxaanu keenaynaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la xisaabtama wasiirka la diranayo wasiirka la diranayo xisaab baa ka dambaynaysa cadaaladdu iman mayso cadaaladdu wayna korka ka timaadaa
wasiirada haddii cadaaladda lagu qaadi waayo ma miskiinkun baa lagu qaadaya sida imanka aynu samayno marka waxba ku dheeraan maayo labadaa erey waa labada waddankeena ka maqan waa labada ucudna u calaamadda laakiin meel shakeliya ku fashilantay waxa weeye xisbigan baa yidhi waxbaan ku qabanaynaa waa qabyaaladda oo yidhi cadaalad baanu samaynaynaa cadaaladi kama jirto runta haddii la isugu tago dalka dowladdan dhisan cadaalad maaha waxba yaan indhaha laga qarsan laakiin waa xukuumaddeedna haddana waanu agsab garayna waanu ogolla nabadgelyada intay 5 sano haystaan waxay doonaan ha sameeyaan ilaahay idankii balmuu aadan madooba ka wada dhigo siilaayo waanu ogolla la soo taagay meesha waanu ogolla waanu ogolla waanu saboorina xisbi ucud baan maanta laga bilaabo u hurgufayna horena aan ugu hurgufayna insha allah inoo soo jeedinayaa guddida cusub ee la magacaabay maanta halkaan ka magacawnay garabka haweenka ee laanta ucid ee Norway waan soo dhaweynayaa dhammaantood waxaan leeyahay shaqo culus baa inoo taalla ku soo dhawaada wada shaqayn wanaagsan waxaan kaloo halkan iyagana waxaan uga celinayaa boosiyar cismaan oo ah gudoomiyaha abaabulka iyo qabanqaabada qaaradda Yurub iyo Nuura Ciise Umar iyo Nuura Ciise Omar oo ah xoghayaha guud ee Yurub oo iyo Raxiima Ismaaciil oo Ingiriiska inooga yimid kulankiinan waana sharafteen aad ayaan ugu faraxnay waa mahadsantiin anaguna mar baanu idin nuuri doonaa kulamadiina insha Allah waxaan dhammaantiin xubnihiina maanta halkan shirka ka soo qayb galay dhammaantiin waa mahadsantihiin soo dhaweynaya shaqo wanaagsan wada shaqayn fiican iyo xisbigii aynu maaragtay dadaalkii halkaa ka sii wadno oo aynu waxaanu doonaynaa mustaqbalka inaan xitaa gudoomiyaha guud inaynu ku wareejino oo hawsha nagala wareegtaan insha Allah soo diyaar garoow assalaamu calaykum